waxaan si jiray ku qabanaynaa Xabeeb VIP Mental Hospital shirka jaraa'id waxa wada qabanaya maamulka hay'adda Xabeeb Mental Health Foundation Dr. Abdurrahman Ali Cawaale oo aniga ah iyo oo dhaqanka ka socda iyo odayaashii dhaqanka qayb ka mid ah wax kala maaha horta waa ku faraxsanahay booqashada ay noogu yimideen dhaqanka beelaha Soomaaliyeed qayb ka mid ah muhiim ayayna noo tahay sidaad ka wareysaan 30 sano ku dhawaad dalka waxa ka dhacay disaster masiibooyin isugu jiro dagaalo colaado barakac abaaro shaqo la'aan isku awood sheegasho ilaa haddana taagan tahay isku awood sheegashadii ay taagan tahay dhibaatada ugu weyn maanta waxay haysataa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfurta bartamaha Soomaaliya oo ay weli nala wadaagaan walaalaha Puntland iyo Soomaaliland xanuunka dhimirka xad male xuduud male siyaasadna maaha isbitaalkan aad arkaysaan gabar dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah hadda oo reer USA oo reer Mareykan ku nool magaalada Virginia ayaa ila soo hadashay maalin waxay tiri Dr. Xabeeb maxaan ka kaalmeynaa waxaan ku yiri war dhul baan haysanaa 10 boos ah dhulkaan laga caawiyo inoo dhiso gabadha waxaa lagu magacaabaa Caaliya Nuur Sheekh Maxamed ilaa hadda ma garanayo Soomaali qabiilkay ka tahay waa tacaawinu cala albirri wattaqwa iyada ayaa ka dambeysay isbitaalkan loo dhisay sida 5 stars hotelka loo dhisay maanta marka waxaa isbitaalka ku jira 186 bukaan oo isugu jira rag iyo dumar xanuunada ku dhaca dhimirka mas'uulka maaha oo kaliya wasaaradda caafimaadka stakeholders ayaa loo baahan yahay waxaa mas'uulka la doonayo inay dadka ilaa sida aragtaan waa da'dii 17 jirkii ilaa 30 jirkii waa dhalinyaro wasaaradda dhalinyarada isboortiga xaq bay ku leeyihiin wasaaradda waxbarashada xaq bay ku leeyihiin wasaaradda qorsheynta qaranka xaq bay ku leeyihiin wasaaradda qoyska iyo haweenka xaq bay ku leeyihiin haweenka halkaa ku jiro ilaa 40 ay gaarayaan oo dhalinyaro u badan irka wasaaradda caafimaadka Fawziya Abikar Nuur qaar Allah siiyo way ka hadashay dhibaatooyinka cudurrada dhimirka shacabka ay ku hayaan balu fiirso way ka hadashay ogow waxaan xusuusinayaa 2008 hay'adda WHO waxay soo saartay qiyaastaas oo ahayd 3 qof Soomaali ah qof ayaa qaba xanuunka ku dhaca dhimirka baqaarka wada arki doontaan waa 0